هدام كفر الحمد لله هدام كفر جيبكات كله ليس هدام كفر مدحات كشي هدام كفر الحمد لله هدام كفر بوقات بدس هدام كفر الحمد لله هدام كفر الحمد لله هدام كفر جيبكات كله ليس هدام كفر مدحات كشي هدام كفر الحمد لله هدام كفر بوقات بدس هدام كفر الحمد لله تاكسو نعم تلابسو قوشادة وتيس المقاعدة تاكسو نعم تلابسو قوشادة وتيس المقاعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركا كوباد يا مركا لباد يا مركا صدحات بجنال كي مدن حسين كسو دوادا ومدن حسين ونقل صهر لأن مقاحدي وإساقا يا إنيقا أو دان waxaan rajinaya dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan ayaan rajinaya ma sha Allah alxamdulillah anigoo caafimaad qaba iyo inigoo caafimaad qababa gibigiinba waxaan iga leeyahay waxaan igu salaamay salaanta islaamka waxaan iga leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkeena maanta xaguu ka daaran yahay barnaamijkeena maanta wuxuu ka daaran yahay CK oo saddex qodob oo muhiim ka hadlay saddexda qodob ee muhiimka ka hadlay waxa weeyaan isagii oo marka hore yiri waxaan soo dhaweynayaa يا سودوين بيوري إك مش يقول سودويني مرك لبادنا وحوري وحنباقو دريا ما فرنو دريا سيكي فاميلي أصحاب تدا يقول حنا ويك سيكا لجاريين وكوا سدجار كا يقول حنا سيكي فاميلي مرك وضم بيسنا وحوري وحن قضب وحن كهلا يبوري دلنا يرادا دون إن السيدة عن نقدان لكن لايك سبسكرايب كولا هدي آت يقول جرتي أول بيقول وضوط هدي أنا نوصل بيرسنا نوصل بير كومنتينا حقين هونسه imikii haddana af joogo looma adeego bay tiraahdaa Soomaalidu af joogo looma adeego ayay tiraahdaa waa latinkii oo hadlaaya hadda af joogo looma adeego maadaama Soomaalidu tiraahdo waxaynu maqashinaynaa bal in yar ila daawada CK oo hadlaaya wuxuu leeyahay daawasho wanaag dhigi doonaa saddex qodobka koowaad soo dhaweyn qodobka labaad fariina u diraayo dadka aniga igu xiran qaasatan CK family dadku iskuma jiraan dadka igu wada xiran iskuma jiraan waxa jiro dad qaas ah aynu laabta iskala socono hal magacna waa leena waxaan la yiraahdaa CK family fariina u diraayo CK family iyo qodobka saddexaad oo ah fariina u dirayo dhalinyarada doonaya sideedoo kale inay caan noqdaan qaasatan ku haminaya inay noqdaan YouTuber saddexda qodob ayaan halkan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo qodobka koowaad ayaan u gudagalayaa oo ah soo dhaweynta haddaba yaanu soo dhaweynaynaa in CK uu hadlay hadalna wuu yiri wuxuu yirina waa wala arkaysaan iyo halkay taagan tahayba CK maanta wuxuu soo dhaweeyay cidda uu soo dhaweynay waxa weeyaan waa egs dumaashidin buu yiri yaa lagu soo dhaweynayaa maxaan ku raadey baraha bulshada maanta ka daaran oo samaysatay YouTube kaasoon hore u sheegnay inuu time weyne ku soo dhaweeyay Jarmalka time weyne shiina culay oo loo bixiyay time weyne inuu ku soo dhaweeyay Jarmalka inuu ku soo dhaweeyay ayaa maxaan ku raadayay oo YouTube oo u furay oo ficil u samaysatay YouTube maadaama ay aragtay ina aw ka lacageystay maxaan ku raadayay CK oo YouTube ka lacageystay ay aragtay ayuu soo dhaweeyay oo soo dhaweeyay taana nin raga umba sameeya nin kasta ma sameeyo raga umba sameeya mid qodobka labaadna wuxuu soo dhaweeyo fariin u diray dhalinyarta maxaa ku ama asxaabta ku xiran CK family asxaabta CK family ayuu maxaa ku raaday u diray fariintaas oo si gaar ah ugu diray fariimaha uu leeyahay ninkaasina waa mid CK family asxaab oo ku xiran mid kale wuxuu diray dhalinyarta maxaa ku raaday doonaysa inay caan noqoto sidiisoo kale oo ku doonaysa inay ku soo biirto social media inay caan ka noqoto CK wuxuu yiri anigu 10ka YouTuberinta Soomaalida ugu horeysa ayaan ka mid ahay oo ku jira buri waana runtiisa been ma 774 subscriber ayuu haystaa CK ma aha nin lagu dhigdhigo ma aha nin la daba socdo ma aha nin maxaa ku raaday timo weyne ka daba hadlo shiina culay iminku 100ka gaaray oo 100ka subscriber soo qaaday balanta laakiin CK wuxuu haystaa 700 oo biladood ayuu haystaa 700 oo biladood ayuu haystaa sidaa daraadeed ayuu ku noqday maxaa ku raaday 10ka ugu horeeya baraha bulshada haddana bal waxaan dhageysanaa sidoo sharaxayo intana sharaxaadda se inisi gelin cidda uu doonayo oo sheegayo CK oo leeyahay maxaan ku raaday dadka doonayna caan noqdaan wuxuu u jeedaa
manaal beeldaaje oo ahayd ex wife ama xaaskiisii hore maxaan ku raday dilbaha isku jiiday inay caan noqoto daraadii ugu soo birtay baraha bulshada tiis weeyaan laakiin ninkaas aniga maanta boqol wiiga fiican yahay maadaama maxaan ku radaa oo qiray oo yiri ku soo dhaweeya baraha bulshada maadaama yiri maxaan ku radaa dumaashidiin subscribe ka u saara maadaama yiri u saara maxaan ku radaa like iyo share waxaya isaguna wuxuu yiri commentiga ayaan soo dhigaya laakiin dad badan baa ka carooday oo leh war maxaa soo sameynaysaa anigoo og ayuu leeyahay anigoo ku og balan waan ku ognahay qofka sida uu dhaqmo aniga oo raacaya wada la raaca wadada ugu wanaagsan ee wadada gobonimada ayaa waxa idin leeyahay saxanka adiga aad wax ku cunto waxa uu kaaga baahan yahay xushmad iska daa qof aad caysh soo wada cunteen nolol aad soo wadaagteen haddaba waxa idin leeyahay waxaad ku mahadsantihiin aniga sidaad iigu dagaalantaan waxaad ku mahadsantihiin kalgacaylka aad ii muujisaan waxaad ku mahadsantihiin sida aniga dadka xumaanteeda ku dhiirada aad qalqalka u gelisaan waxaad kaloo ku mahadsantihiin sida aniga markii aan qaldanahay ama gaf iga dhaco ama dhiiqo lugaha aan la galo sida luuqa intaad igu soo gashaan aad talooyinka wanaagsan ii siisaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa in dad wanaagaas uu ku dhan yahay aan run ahaantii u ahay role model kursi ay ii dhiibteenna aan ugu fadhiyo oo aan hool u hayo haddaba waxaan idinka codsanayaa aniga oo og waxaan idin leeyahay marxaladda taagan aniga oo og ayaan waxaan idin leeyahay budka gacmaha aad ku haysaan inoo dhiga waddo ayaan inoo jeexayaa waddadaasna magaceeda waxaa la yidhahdaa gobonimo mar kale ayaa idinku celinayaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inaa ilowdid waddada wanaagga ay duruuf kuu geyso mararka qaar waxaa dhici karta duruuftu inay kuu geyso inay kaa dhigto qof aadan adiga ahayn haddaba waxaa idin leeyahay nasabnimada la sheego iyo gobonimada la sheegaba waxay ku jirtaa qof aad shalay cays soo wada cunteen in aad u haysid ixtiraam wax kasta oo qofkaas qalbigaaga ugu jiray muhiimaddu waxa ay tahay qofkan haddii aad cays gacan soo wada geliseen iska daa qof aad nolol soo wada marteen in aad u haysid ixtiraam marka ay noqoto bulshada dhexdeeda qalbigaaga waxa ka guuxaya adiga qaas ku yihiin balse nasabnimada la sheego ma aha tan qabiilka ee waxa ay tahay qofka aad cays soo wada cunteen aad nolol soo wadaagteen inaad noqotid qofka qof wanaag u haya waxaanina waa youtube-ka lagu sheegayana aniga hadda idinla waxaan ka baranaynaa maxaan ku raadayay wax cajiib ayaan ka baranaa CK wuxuu yiri intaad luuqa isoo gashaan fariimaha wanaagsan ee tayada iyo dhiirigelinta iyo maxaan ku raadayay samirsiintaba waa niga gudoomay buu yiri anigoo og buu yiri inaa faraqa lay haysto anigoo og hadalkaygu inuu meel kasta socdo anigoo og inaa meel kasta layga sheekeynayo anigoo og meel kasta inaa laygu hadal hayo waddo ayaan inii jaaxayaa buu yiri fariintu u dirayay waa fariintu u dirayay maxaan ku raday CK family waddo ayaan jaaxayaa buu yiri waddo ayaan sameynayaa buu yiri waddadan sameynaya waxa weeyaan buu yiri gobonimo baa la yiraahdaa buu yiri waddadan sameynaya waa waddo gobonimo la yiraahdo dulqaad ragantinimo iyo ixtiraam waddada loo yaqaano ayaan inii jaaxayaa buu yiri waddadaas ayaan sameynayaa ila qaata waddadaas sawirkayna qaata ila aqbala maxaan ku anigayga dhan sheegay buu yiri inaan ugu sareeyo youtuberada Soomaaliyeed ina waxa jirta buu yiri waxa jirta ina maxaan ku raadayay aw britola youtube kaas ex wife kiisi ay maxaan ku raadayay iga horeyn doonto yiri ama se ay ka horeyn doonto marka waxaan ka baranaynaa ninka CK dulqaad wuxuu yiri qof aad ciish soo wala cunteen aad soo wala cabteen biyo soo wala cabteen screenka soo wala jaqdeen gebigiinoo dhan saa doonto soo wada yeesheen handana ixtiraam inaad haysaa hadduu isagu ku xumeeyay adigu inaad xumaysid maaha buu yiri marka qabiil marka laga tago buu ay halka qabiilka ayaa isticmaala timo weyna isticmaala oo shiino cule la yiraahdo timo weyni ayaa isticmaala oo abti ku soo dhaweynaya bakartay marka sida daradeed wuxuu sheegay ninkaasi inuu gobonimo iyo ixtiraam iyo sharaf inoo hayo taas ayaan qaadanaynaa youtube-keena caawa arrintu intaas ayay ku eg tahay waxaan leenahay CK hambalyo legend dhale baa tahay caan dhale baa tahay geesi baa tahay boqolkiiba bal madaxa noo saaran tahay shiino culina dacaskan ku socono ayuu anaga agteeda ka yahay iyada iyo macal ex wife-na anaga dacas bay nolol mid tahay waan ku ixtiraamnaa waan ku sidanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi